واسقة جهنم إلى هرتس لو سمعنا إذا وحاد في عن ما كورن هذا واحد ديدا سامك أو أمسنتها إنه يهاي قابتي إله أولها بديدا سائن نن هناك اسمه تكان محاول لنا سبقتوي إله جناد إله أو معرفين إنه القدوسة اسكو تجد مجرته وأيان درة وأنا فكر حن وأد الليتا اسكو تجد مجرته وأيان درة وأنا فكر حن واسقة جهنم إلى هرتس لو سمعنا إذا وحاد في عن ما واسقة جهنم إلى هرتس لو سمعنا إذا وحاد في عن ما سؤال نسوي سؤال أد ونكسن أكو صابسن إله ملك سموجو حق وجوجا annaga waxaan aaminsanahay ilaah inuu meel kasta uu joogo adigu kula jooga hadda waxa laga yaabaa inay joogto dhulkaas carabta meel kamid ah ana ingiriiskan jooga uu ila jooga wasaqo jahannama ilaah hortiisa lagu sameeynaa idan waxa aad u fiican ma annaga waxaan aaminsanahay ilaah inuu meel kasta uu joogo بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سود هذا ولا ليال ملك جوجتان إلهي هذين كنا بدياله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وولاليهن دعوة في الراس الإسلام ومانتا إني وضع شينغابو إيو حاسكيسي أو مركلة ديغة نح فريستي شينغابو إيو حاسكيسة وحي اسكو ديان مركلاتو إني كهالله وحينا علمي أولهين مركاسي دوبا نح فريستين سدح قضب أيانا كو عدينينا كو شينغابو إيو حاسكيسة وحي كو هذاقين in muslimiinta abaalmarinta ilaahay uu ugu talagalay aakhiro ay ku kooban tahay khamri iyo haween hadda sheekh weydiiso tiraahdo sheekhow adduunka sinada adduunka ii sheeg sinada adduunka maxaan ka ilaaliyaa adduunka wuxuu ku leeyahay annisaa wal khamr fa'uudu billah haye haweenkii khamriga iska ilaaliya ilaah baan ka magan galay haye hadda tiraahdo nacaynka aakhirana iga sheekee النساء والخمر والحمد لله وإنتي موضوع حق الصومالية أنت halkan ka diiday ayuu ku leeyahay jannada xagaasi jirtaa arrinkaasi maxaa ka jira waan soo bandhigi doonaa qodobka labaad wuxuu noqon doonaa Shinagaabo iyo xaaskiisa waxay dhaheen wax ilaahay uu ka xaraam yeelay adduunyada aakhiro ugu ma tagaysid waxaan yaa waxa la yiraahdaa waxa helaysaa wax walba oo adiga maartay sida qamro oo kale qamradii hadaay halkan waa lagu diidaa la yiri adduunyada waxay ku leeyihiin ninka qamradina iska caaba asma xorwaana qamro wuxuu ku leeyahay aakhira ay taala aakhira ku cabaawlay qamro aakhira ma taalo waxa adduunyada lagu diiday oo lagu dhaw waa dambi ma gali karo aakhira ma tagi karto jannada ma tagi karto arrinkaasi maxaa ka jira ilaahay wuxuu adduunyo ku xaraameeyay macquul ma tahay in gud kaaga dhigo aakhiro qodobka saddexaad aan ku soo gabagabayn doonana haddii ilaahay yiraahdo waxa weeye Shinagaabo iyo xaaskiisa waxay dhaheen aakhiro isguursi ma jiro la isma guursanayo ayagoo ka soo qaaday kana suureeyay guurkaba inuu yahay wax xun oo nijaaso ah oo aynan habboonayn in jannada iyo daartaasi ilaahay oo ugu talagalay dadka rumeeyay laga dhaxelo waxa adduunyada lagu diiday oo lagu dhaw waa dambi ma gali karo aakhiro ma tagi karto jannada ma tagi karto naaga waxa lagu raadinaysan baa lagu kaasa waxa leedahay intaan zinays iska dhaafto 72 la ii diyaariyay taasina waa arrin aad u xun wasaqo jahannama ilaah hortiisa lagu sameeynaa idan waxa aad u fiican ma ka waran hadda waxa diidaysaa midka oo ay u aaminsantahay inuu yahay goobtii ilaah uu lahaa baa diidaysaa in nin inaag isugu tagaan maxaa u malaynaysaa boqortooyada ilaah iyo jannada ilaah oo maartay inuu wada quduus ah isku tagid ma jirto waa ayaan darro waana fikir xun oo aad u liita isku tagid ma jirto waa ayaan darro waana fikir xun oo aad u liita bal naqdhifu bil haqqi ala al batil fayadmaghuhu fa idha huwa zahiq wa lakum al waylu mimma tasifun waxyaabaha dadka cadowga islaamka ku ah ay ku celceliyaan ee ah in muuminiinta naciimka iyo nicmada uu ilaahay u diyaariyay ay ku kooban tahay oo kaliya waxyaabaha jirka uu ku raaxaystay ee jirka uu dareemo sida cunno iyo haween iyo wixii lamid ah waxba kama jiro oo saxna ma aha ee ilaahay subxaanahu wa tacaala sida jirkaba wuxuu ku raaxaystay oo ugu diyaariyey ayuu muuminiinta abaalgud wuxuu oga dhigay waxa qalbiga uu ku dego oo ku raaxaysto oo ku farxo ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay asagoo ka hadlaya dadka mu'miniinta waxa uu u diyaariyey liladiina axsanuu xusna wa ziyaada mufasiriinta waxay dhaheen wuxuu ilaahay subxaanahu wa tacaala aayadda ka wadaa dadka mu'miniinta waxa u sugnaaday oo leeyihiin aakhiro alxusna oo jannada laga wado wa ziyaada oo ay mufasiriinta ku fasireen dheeraadkaana waxay dhaheen waa ilaahay subxaanahu wa tacaala oo wejigiisa u faydahaya si ay arkayaan aadna ugu farxayaan
markay ahlu jannada arkaan ilaahay subxaana watacaala waxay ilaabahayaan dhammaan wixii nicmo iyo barwaaqo ah ee horaan ay usii haysteen ee jirka uu maaragtay ku farxayay ee ku raaxaysanayay oo waxay aad ugu farxayaan aragga ilaahay subxaana watacaala waxaa kaleeto oo ilaahay oo ugu talagalay abaalmarinna ah inuu ilaahay ka raalli noqonayo oo uu dhahayo waan idinka raalli noqday deedna raallin ahaanshahaasi wax calo oo ka dambaysa ma laha dib dambana iniguma caroon doono farxaddaasi ay farxi doonaan markii ay arrinkaasi xisiga ah ee qalbiga unu laga dareemahayo ee maskaxda laga dareemahayo markii ay heleen farxadda ay farxayaan ayaa waxay ku keeni doontaa wixii horaan ay u haysteen oo dhan oo nicmo ah oo wax la cuni iyo wax la cabiye meel la seexdiye meel lagu raaxaysta ahayd ayay iloobayaan oo tana uga weyn halkaana waxay caddayn u tahay inuu ilaahay waxa mu'miniinta uu ugu talagalay keliya aysan ahayn wax la cuno iyo wax la cabo sida jirka wuxuu ku raaxaysto ilaahay oo ugu talagalay mu'miniinta sidoo kaleeto wax qalbiga uu ku dego oo ku xasilana inuu ilaahay mu'miniinta ugu talagalay una diyaariyey sidaa darteed ayuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu leeyahay markii ahlu jannada ay galaan oo wixii nicmo iyo barwaaqo ahayd ee ilaahay ugu talagalay ee jirkoodii iyo naftooda ay ku raaxaysanaysay loo dhammaystiro ayuu ilaahay subxaana watacaala xijaabka iska qaadahayaa kaga teedna ayuu iska qaadahayaa markaasuu nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi markay arkaan ilaahay subxaana watacaala allihii abuuray markay arkaan famaa uctuu lama siinin dadka ahlu jannada ahaa ee jannada galay lama siinin shay-an axabbu ilayhim wax looga kalgacayl badan yahay min annadri ilaa rabbihim caza wajal fiiradaasi ay fiirinayaan ama aragga ay arkeen ilaahay subxaana watacaala ay arkeen wax ka fiican ama wax ay ka jecel yihiin oo la siiyey ma jiro ilaahayna wuxuu aayad kaleeto qur-aanka ku leeyahay wa fiiha maa tashtahiihi alanfusu wataladu lacyun jannada dhexdeeda waxaa ahaaday maa tashtahiihi alanfus wax allaala wixii nafta ay maaragtay ay jeclaato wataladu lacyunu ishana ay ku qabowsato wax kasta oo naftaada ay jeclaato ishaadana ay macaansato ay ku faraxdo ayaa jannada dhexdeeda ahaatay marka wuu ka guda weyn yahay wuxuu ilaahay mu'miniinta ugu diyaariyey jannada ee abaalguda in lagu soo koobo wax la cuno iyo wax la cabo iyo haween in lagu soo koobo aayad kalena wuxuu ilaahay subxaana watacaala qur-aanka ku leeyahay suuratu sajda ku jirto falaa taclamu nafsun maa ukhfiya lahum min qurati acyun nafi garan mayso mana taqaano naf garanaysa ma jirto waxa loo qariyey ee jannada ilaahay subxaana watacaala uu ugu dhex qariyey mu'miniinta iyo dadka asaga adeecay oo min qurati acyunin ilqabowsi ah oy ku ilqabowsanayaan ee ay ku farxayaan hadalkana waxaa lagu soo koobi karaa dadka mu'miniinta ah marka ay jannada ay galaan wuxuu ilaahay subxaana watacaala uu siiyey raalli ayay ku noqonayaan wax kaleeto oo ka maqan oo ay dalbanayaanna ma jiro radia allaahu canhum waraduu can ilaahay subxaana watacaala baa ka raali noqday wanaagga ay soo faleen adeecitaanka ay soo adeeceen waraduu canhu ayagana raalli bay ka noqdeen waxa loogu abaalguday shaqadii ay soo shaqaysteen loogu abaalguday ayay raalli ku noqdeen qodobka labaadna ninkan wuxuu yidhi guur iyo jimaac kama jiro jannada oo guurkii iyo jimaacii ayuuba ka suureeyey wax liita oo aan ku habbooneyn jannada subxaan allah marka waxaa garan waayey mashina gaabo ayaa been sheegay mise ilaahigiisii oo kitaabkiisii ku qoran ayaa been sheegay waxaa ku soo aruuray genesis ama bilowga cutubka 1 verska 28 sidaatan ilaahay wuxuu barakeeyey aadam oo lagu abuuray jannat cadan ayaa lagu abuuray marka ilaahay wuu barakeeyey aadam iyo xawa marka wuxuu ku yidhi wax badan dhala ilaahay ayaa wuxuu amrayaa aadam buu amrayaa aadamna xaguu joogay jannada buu joogay wuxuu yidhi wax badan dhala tarma oo dhulka ka buuxsama buu yidhi marka su-aasha raba inaan weydiiyo shinagaagow ilaahay markuu yidhi bata wax badan dhala tarmadaasi
waxaani siduu ku imaanayaa bal ha ii sheego mucaashara la'aan iyo jimaac la'aan sidee arrinkan ku dhacaayo weeyaan amarkan xaggee weeyaan waa jannada weeyaan adina jannada waxaa leedahay waa meeshii lagu abuuray aadam weeyaan meeshaasi marka waxaa leeyahay shiina gaabow ma adaa been sheegtay mise ilaahigaagaa been sheegay waxaa kale kuugu darayaa hadalkaani hadal oo cumar yidhi miya may waa hadal oo mufasir oo masiixi yiri weeyaan bal kaale a akhrino tafsiirka antonius fikri wuxuu leeyahay hunaa hiya baraka ruuxiya wa baraka jasadiya wuxuu leeyahay laba barakad oo barakeeyey ilaahi wuxuu barakeeyey aadam ayuu barakeeyey waa laba baraka ayuu ku barakeeyey midna waa ruuxi weeyaan midna waa jasadi oo jirka ah midka jasadiga waxa weeyaan waa guurka oo guursaday weeyaan guurkaasna sababta u guursadayna waxay tahay ilaahay baa wuxuu ku amray inuu bato liyaziida cadadahum wayamla alard si oo u bato oo dhulka buuxiyo lidaalika kulla man yufakir mufasirka wuxuu leeyahay lidaalika kulla man yufakiru fi ana saqطat aadam hiya anahu caashara zawjatahu xawaa yakunu khaati'an wuxuu leeyahay mufasirka qof kasta oo ka fikira ama dhaho dembiga oo aadam galay oo ku dhacay waxay tahay in oo la mucaasharaday naagtiisii wuxuu leeyahay wuu qaldan yahay qofkii yidhaahdo hadalkaani wuu qaldan yahay ayuu yiri mufasirka oo masiixiga لأنه wuxuu leeyahay sababtan waxay tahay wuxuu yidhi fahal takhruju barakatu min khatiya wuxuu leeyahay barakad qalad ama dembi ma ka dhalan karaa weeyaan buu leeyahay marka shinagaabo waxaan leenahay ma adaa been sheegtay mise ilaahigaagii ayaa been sheegay qodobka labaad masiixiyiinta caqiidadoodii waxay sheegaysaa iyo adina caqiidadaadii waxaad rumaysan tahay in ilaahi inuu joogo meel kasto walaal aad baan ku salaamay waa master shiina gaabo oo kasoo hadla Somali Christian TV waa ku mahadsan tahay su'aasha wanaagsan aan soo weydiisay su'aashan aan soo weydiisay su'aal aad wanaagsan ee ku saabsan ilaah meel kasta uu joogo xaguu jooga annaga waxaan aaminsanahay ilaah inuu meel kasta uu joogo adigu kula jooga hadda waxa laga yaabaa inay joogto dhulkaas carabta meel kamid ah ana ingiriiskan jooga uu ila jooga si ruuxiina ayuu ila jooga ilaah maxaa la yiraahdaa presencegiisa ama joogitaankiisa meel kasta ayuu buuxiyaa waxaad rumaysan tahay inuu ilaahay meel kasto joogo adduunka meel kasto inuu joogo calooshaadii inuu ku jiro dhagaxa inuu ku jiro xamaamka inuu ku jiro cazakum allah qaaduuraadka inuu ku jiro meel kasto oo ilaahigaaga joogo bidaatihi sidaas ayaa rumaysan tahay marka maanta markaa la seexanaysid xaaskaagii oo ilaahina meesha joogo ma isla wixii miyaa ama waxaa leedahay waxa weeyaan waa farqi baa u dhaxeeyo hadday dhahday waa farqi baa u dhaxeeyo waxaa kaa codsanayaa inaa ii sheegtid farqiga u dhaxeeyo maanta qolkaagii markaa la seexanaysid xaaskaagii iyo markaa jannada joogtid oo xaaskaagii maxay ay ku kala duwan yihiin bal ii sheeg maxaa yeelay caqiidadaadii ma aha caqiidad tii muslimka ma aha baynama anaga waxaa rumaysannahay ilaahay tabaaraka wa tacaala inuu yahay baa'inun can khalqihi inuu ka baxsan yahay khalqigiisii kuma dhex darno khalqigiisii anaga laakiin adig caqiidadaadii waxay leedahay ilaahay meel kasta buu joogaa qodobka saddexaad maanta marka xaaskaaga la seexanaysid ma waxaa ku samaynaysaa meel oo ilaahay abuuray miya ama wax meel oo ilaahay abuurkiisii ka baxsan ayaa ku samaynaysaa wajawaabtu waxay noqonaysaa waa meel oo ilaahay abuuray weeyaan oo dhulkiisii yahay marka aakhirada jannada hadduu asaga kuu baneeyey sidii oo adduunka kugu baneeyey oo ku yidhi waa xalaaluu kuu yahay iska ilaali zinada oo xalaashaadii u tag oo ku amray oo samee ku yidhi oo raacday maxaa diidayo inuu aakhirana ku dhaho waa xalaaluu kuu yahay inaad samaysid waa asagii weeyaan oo ku dhahay waa xalaal buu ku yahay tanna waa malakuutkiisii weyna kaasna waa malakuutkiisii weeyaan wax farqi u dhaxayna ma laha marka waa abaalmarin iyo abaalgud ayuu ilaahay kugu abaalmariyey aakhira markaad tagtid jannada oo sidii
arladii markaa joogtay oo ku yiri waa xalaal weeyaan aakhirana wuxuu ku yiri waa xalaal weeyaan qodobka shanaad guurka kuma eka jimaac keli إلهي تبارك وتعالى قرآن كيسي وحكيري ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته دليل وين الله كتسم حكمدا أن خلق لكم إنه إذن كدرتين يبوا أبوري من أنفسكم ملك لما دونين إذن كلفتين وحال إذن كأبوري أزواجا حسسك أباهنا إذن وحاو أيا وحال لقوم آدم أنت كلينك أبدا الله لتسكنوا إن دكتان إليها زوجتي أدو دكتانو إلى قفكو قرصة قرياشو وإسكاتك بوبوبا يوكلا لتسكنوا إليها إن يدي وحسيشان كل كاسا وجعل إبيالي بينكم دحدينا مودة كالقعالو أن لا أراد الله مقال إيا ورحمة حريص أولاد أما ليسوا جمعوا marka sida aayadda ka fahanay guurka kali kuma eka jimaaca kali taasna waxay maaragtay na tusinaysaa kali ma aha shahwo gudasho qodobka lixaad waxaan rabaa su'aal inaan u diro qoladaani Shinagabo iyo xaaskiisii su'aalaha halkan ugu dirayaa waxaan rajaynayaa inay ka soo jawaabaan waxaa leeyahay waxaa ku soo aruuray Matayos cutubka 19 verska 29 oo Ciise Masiix dhahayo mid walba oo ka tago guryo ama walaalo ama aabbo ama hooyo ama caruur ama naag laakiin Somali version kama helaysid ereyga wife kama helaysid naag kama helaysid waa laga tuuray laakiin waxa weyn markasto alxamdulillah baan leenahay waxaa jiro dad oo fadeexaynaya waxaa arkaysaa dad tarjamadan ka waysid waxaa ka helaysaa tarjamo kale ka helaysaa kali waxaa sameynaysaa waxaa barbaaraysaa tarjamooyinkii kaliya ay barbaaraysaa marka alxamdulillah King James hadaa furtid waxaa arkaysaa wife ba ku qoran sida hadda oo hortiina shaashada ka muuqato oo tarjamada tahay iyo new translator martay sidaas oo kale tarjamadan sidaas bay sheegaysaa marka waxaa leenahay Shinagabo qofkii oo naag ka tago aakhira wuxuu heli doonaa boqolaab waxaan rabay boqolaabkaasi muxuu ku sameyn doonaa boqolkaanda muxuu ku sameyn doonaa bal ii soo sheeg waxaan rabaa inaad iga soo jawaabtid su'aashan ha ilaabin inaad ka soo jawaabtid su'aashani qodobka saddexaad Shinagabo wuxuu yidhi wax adduunyada xaraam ku ah suurtagal ma aha inay aakhiro xalaal kugu noqoto hadalkaasna waa hadal baatil oo waxba kama jiraan hadal sidaasi loo qaadan karana ma aha ee ilaahay subxaanahu wa tacaala waa facaalu limaa yuriid wuxuu doono ayuu sameeyaa waxaa laga yaabaa wax adduunyada ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ku xaaraameeyey ibtilaa'an wa ikhtibaaran imtixaam iyo ibtilo uu ku imtixaamayo oo uu ku jirrabayo addoomihiisa aakhiro inuu ugu banneeyo tusaalena qofka muslimka ah adduunyada markii la joogo 4 haweena ka badan inuu guursado xaaraan bay ka tahay laakiin aakhira markii la tago suu ilaahay subxaanahu wa tacaala quraankiisa ku sheegayba xaasasku way fara badan karaan sidoo kaleeto wixii adduunyada xaaraam ku ah khasab ma aha inuu aakhiro xalaal ku noqonayo xalaal inuu ku noqonayo aakhiro khasab ma aha oo waxaa dhici kara wixii inuu adduunyada xaaraam ku yahay hadhow haddii ay la tago jannadana xalaal una noqonaynin oo xaaraamnimadiisa uu sii ahaanayo tusaale haddaan taa ka bixiyana adduunyada markii la joogo inaad walaashaa guursato waa xaaraam qofka mu'minka xaaraam ku yahay aakhirana markii la tagana sida un bay xaaraam u noqonaysaa hooyada inaad guursato oo kaleeto muxaramaadka gabdha ee dumarka xaaraamka ka ah qofka mu'minka inuu guursado aakhirana sidaas oo kale xaaraam ugu yihiin tusaale waxaa xaaraam ah liwaadka oo kaleeto camalkii qowmuluud oo kaleeto ruuxa inuu ku kaco adduunyada qofka muslimka xaaraam bay ka tahay aakhirana sidoo kaleeto xaaraam bay ahaanaysaa ilaahay ma banaynayo in allaha laa ya'muru bilfaxshaa ilaahay xumaanta dadka ma faro waxaa kaleeto lamid ah khamriga hadda adduunka lagu cabo ee qalbiga iyo maanka tagsiinaya ee ruuxa caqligiisa meesha ka saaraysa
ee ku keenaysa ruuxii xitaa inuu isku saxaroodo mararka qaar ku keenaysa sidaa unbay xaaraan ku noqonaysaa khamrigaas noocaas aan naqaano ama khamriga ilaahay subxaanahu watacaala uu qur-aankiisa ku sheegay ee dadka mu'miniinta lagu abaalmarinayo magaca unbay ka midaysan yihiin siduu ibnu taymiya raximahullah uu sheegay sheekhulislaam ibnu taymiya uu sheegay oo kaleeto magaca unbay ka midaysan yihiin ma ogiye aad bay u kala duwan yihiin khamriga qur-aanka ku jira ee ilaahay uu yidhi wa anhaarun min khamrin ladatin lishaaribiin aayadda ay marayso ilaahay baa tilmaamaheeda noo tilmaamay wuxuu yidhi khamriga hadday dadka ahlu jannaha hadday cabbaan laa yusaddacuuna canha madax xanuun iyo madax wareer kuma keenayo walaa yunzafuun wax uurkooda ku jireena kama soo daadinayo aayad kalena ilaahay asagoo tilmaamaya khamriga jannada dadka lagu abaalmarinayo mu'miniinta wuxuu yidhi laa fiiha gawlun walaa hum canha yunzafuun oo micnaheeda ay tahay caqliga ma qaadayso walaa hum canha yunzafuun marka tilmaanta hadda aan ku naqaana khamriga adduunka waxa ugu horeeya ee nagu soo dhacahaya waa sarkhaamin iyo maankii oy dooriso weeyaan taana ilaahay subxaanahu watacaala ayaa ka nafiyey marka waxyaabaha musamayaad magaca unbay wadaagaan ma ogiye haddii la fiiriyo waa aad bay u kala duwan yihiin taymi wuxuu leeyahay raximahullah magaca unbuu ilaahay nagu fahamsiinaya inta tilmaan ahaan aan ka naqaano ee aan ka fahmaynay ka wadaagaan unbaan maaragtay nalagu tusinayaa ma ogiye laakiin aad bay u kala duwan yihiin sidaa weeye sida saxda ah laakiin ruuxii aanan cilmi lahayn ee asagoonan cilmi u lahayn wixii iskaga dhexdhacahaya wuxuu noqonayaa sidii shiina gaabo oo kaleeto inuu maalin kastaba uu wax la yimaado oo maanta uu la yimaado wax adduunyada xaaraam ku ah aakharo xalaal kuma noqon karo su-aasha meesha u taallana waxaa weeye oo ilaahay subxaanahu watacaala awoodba oo ma laha miya wax imtixaan iyo ibtilaa uu adduunyada qofka mu'minka ooga xaaraameeyey aakhare markii la joogo inuu u fasaxo oo ilaahay khiyaar maba laha miya su-aashaasaa u taalla markaa ninka la yidhaahdo shiina gaabo mana u malaynayo inuu ka jawaabi karo waxaa kaleeto uu shiina gaabo u dafiray wixii buuggiisa ku yaalay waxaana noo caddayn doono walaalkeen amiir xalay waxaan daawanayay muuqaal uu duubay shiino iyo xaaskiisa shaaniya muuqaalkaas wuxuu ku beeniyey shiino arrin ku jira buuggiisa gaar ahaan buugga matayos bal hadalkiisa aan dhagaysana insha allahu tacaala si aan u ogaano arrinka uu ku beeniyey saabsan maxaa anaga tii aan kasoo baxnoo kale maxaa nala soo baray waxaa la yidhi waxaa helaysaa wax walba oo adiga maaragtay sida qamro oo kaleeto qamradii haddaay halkan waa lagu diidaa la yiri adduunyada waxay ku leeyihin ninka qamradiina iska caacaba asma muxuu rabaana qamro wuxuu ku leeyahay aakhira ay taala aakhiraan ku abaabulay qamro aakhira ma taalo aakhiraan ku abaabulay qamro aakhira ma taalo aakhiraan ku abaabulay qamro aakhira ma taalo daawadaha sharafta badanow sida aad maqashay halkaas shiino wuxuu ku beeniyey in jannada ay taalla khamro marka arrinkaas ciise calayhi salaam wuu ku waafaqsan yahay mase wuu ku diidan yahay shiino aan akhrina buugga matayos cutubka 26 faqrada 29 faqradan waxay ka waramaysaa cashadii ugu dambeysay ay wada qaateen ciise iyo xirtiisa injiilka sida matayos u qoray cutubka 26aad laakiin waxaan idinku leeyahay hadda dabadeed anigu kama cabbi doono midhahan geedka canabka ah ilaa maalinta aan iyadoo cusub idinkula cabbayo boqortooyada aabbahay dhexdeeda ciise wuxuu leeyahay khamrigan adduunyada aan cabbo maanta ay ugu dambayso laakiin waxaan khamrigaas ku cabbi doonaa boqortooyada ilaah marka kelmadda halkan la isticmaalo waxaa waaya geedka canabka baa khamrigana laga sameeyaa marka aan fiirino isla buugga matayos cutubka 26aad faqradii 39aad annagoo ka akhrinayno turjumaad ingiriisi ah si aan u aragno kelmadda ay isticmaaleen turjumadan waa New Living Translation waxay leedahay sidatan wuxuu leeyahay mark my words I will not drink wine again until the day I drink it new with you in my father's kingdom halkan waxaa la isticmaalay kelmadda ah wine marka la fiiriyo jannada way taalaa khamri laakiin khamrigan adduunka maaha waa khamri ka duwan waa khamri qofka caqligiisa aan tagsiinaynin marka waxaan leeyahay shiino والسلام على من اتبع الهدى